knn. koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan garashayo haddaad galad leedahay abaalkaan galnay waad noo gudi lahayd aryaadhaha waxaa la yidhi qaylo war makama tunmaane xaad isu keenteen abdulow maahmaahkadeelka kii ka hadisadaabba habbahey gudaantiya birmakutuma maaso leere madeeyo waxuu ahay aabbahan la gubayood hadda afkaaga ka yeeraaya gooyow hadduu wakhtigii gabagabayahu farmaajo ii geeyo bilaabay taasu ceebtii maahee waa caadadiisa ha la yaabina maxaan ku galnaa jidadkaad xiratee gacal walaal adiga iska gooysay farmaajo war madaxweynaha wakhti kama dhammaan 13 bilood iyo 8 maalin u dhiman laakiin wax la tiriyey tabaryar ahaa la yidhi warnamiya horta markan koraysa qaran dumisa atin ilaahow bedel faylana ma araasan hatana war ma haysiina warkii hore war soo dhaaf muuse bixi ma muqdisho yimid midowga miya u ogolaaday war adeer muxuu idinka soo doonaya idinkii baa isku marane war cabdirashiid xidig iyo saaraar iyo axmed madoobe miyaa heshiiyey war doctor shaakir iyo maxamuud miyaa la soo xiray war haddaad diiday orod ila meerayso aryaada hore loo yiri jacayl dheer iyo dhulow lagu socon wareerda caafimaad ma qabtaan warka naga suga amba dhamay qaraarkii waynaad dhadhamisaa sow awadhaantiyo sow filan maysid sow filan maysid dheeldheel sow war dheeldheeluma taale warka naga sugaa lihiina lamaya wasiirkii amniga ee jubbaland cabdirashiid janan la hukumay faaduma kornayl buu xidhantahay ma xisaabtiyaa ku xumaatay ma janannimadiyaa laga xanyuubiyey isagoo xidhanaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland loo magacaabay mashuuta ay kulmeen maya taliyaha maxaabiistaa laga dhigay ma talyaanigaa loo dhiibay tuura kuu soo baxday wareerda wax laydinma sheegi kareen nimayow na suga marka hore yaa wax noo sheeg u dhah naga tag ununkaa wax noo sheeg dhahni ha noo sheegiye kuu sheekeeye kaa sheekeeye hala sheekaysan alle eri kaas waa sharka anna waa sharkeeye ka shakaal dibnahaoo shada kale colow miya askari dawlad iyo shacab sharwado uma kala harnoo dagaalka shirkan ku nahay waxaad noo sheegi rabta sheeg niyahow war waadna wareeriseene cabdirashiid janan dawladdii waxay tidhi xabsigii waa ka fakaday meeluu jaan iyo cirib dhigana waa la'nahay waana ku raad joognaa war ilka casana miyidii ka fakaday war janan jaabshin yeerle waa galiya ka aale aryaadhaha taas waa isaga jeedahe meeqa jeenan ahaa laga qaadaa la yidhi janan war aniga waxaasoo dhan waxaa iga daran taliya sakiyo twitterkeeda ku soo qortay cabdirasiid janan waa uu ka baxsada meeshii uu ku xirnaa shacabkana waxaan ka codsanaynaa ciddii aragtaa inay nugu soo wargelisay eedaysanahaas ciidamadu ku daba jiraan marka waxaan la yaabanahay hal sana ku dhowaad u xirnaaye eedaysana inuu intaas xirnaada dastuurka kuma qorne war dastuurku waa qabyo la joojiyaano bannaan la jiifiyaano bannaan miyaa laga wadaa war shabaabkaa hadda ka hor odayaal qafaashaa la yidhi muddo badan markii la waayo laga samray oo qaar taxsiil loo dhigay qaarna islaamahoodii la guursaday ayay soo daayeen waxay yidhahdeen dawladdii waa idiin dhammaatay ordhaha iska baxa marka hadda cabdirashiid amaa dawra u socoto u dhammaatay war adiga maxabsigaa lagaa wacay waa adiga albaabkiisa garaacaye dawraan nabad iyo nolol ahayn samiyaa dalka ka jirta ma falan yahay war dawladda miin waa cayaar dhaqameed warnimada xildhibaan fiqi wuxuu yidhi cabdirashiid jaran intaan fakashadiisa naloo sheegin xabsiga oo ku xidhnaayo qofka intuu albaabka iska furo iska bixi karo ha naloo sheego wuxuu kaloo yidhi wasiirka fakada amnigiisa ayaa mas-uulka ahaa oo ilaalinaya ha naloo sheego suurtagal ma tahay in warkaa ujeeddo kale laga leeyahay uu yidhi oo dilkiisa loo marmarsiyoonayo oo hadhow inta sakiya nagu soo laabato ay dhihi doonto ciidamadii daba joogaa dilay yaa taasu maydaa fakashaahe waa toogasho dadbane war xildhibaan fiqi shaqadii uu qaban jiru inoo sheegay aboojanan namarkii hore mehiis maxaas joogi waay usmaxaasu baxay anna maxaan ka ogahayna uskaali axmed madoobe ma isla hadleen warnimay oo filankan khayray axmed madoobe miday ka soo shaqeeyaan ogya war madaxweynaha intuu elatari ku maqnaa miyaa laga faa'iidaystay cabdinuurna waa raaco